iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si aad looga warsugayay natiijada doorashada golayaasha deegaanka iyo waliba wakiilada oo ka dhacday guud ahaan gobolada iyo waliba degmooyinka Somaliland. Haddaba komishanka qaranka Somaliland ayaa saaka ku dhawaaqay natiijada doorashada golaha wakiilada ee gobolka Awdal. qaranka ee gobolka Awdal saddexda xisbi qaran saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda dawladda dhammaantiin ka soo qaybgalayaasha dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan maanta oo ay bishu tahay 4 bishii 6 oo maalin jimco ah waxaan ku dhawaaqaynaa doorashada golaha wakiilada ee hordhaca ah ee gobolka Awdal xubnaha ka soo baxay aniga oo ka duulaya qodobka 130aad faqradihiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer number 19 2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran oo ay leedahay ku dhawaaqidda natiijooyinka doorashada golaha wakiilada ee gobolka Awdal aniga oo tixraacaya isu geynta natiijada codadka ka yimid afarta degmo doorasho ee uu ka kooban yahay gobolka Awdal aniga oo garowsan daahfurnaanta la xidhiidha wadarta codadka ay ii soo gudbiyeen dhammaan gudoomiyaasha komishanka qaranka ee degmooyinka gobolka Awdal markaan arkay in ay isku raaceen dhammaan wakiilada saddexda xisbi qaran ee heer gobol kuwaas oo ay ansixiyeen waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca ee doorashada golaha wakiilada qaranka ee gobolka Awdal oo u dhigan sidan soo socota wadarta guud ee ka codaysa gobolka Awdal waa 9,320 waxaa soo gudub doona 9,320 saddexda xisbi sida u kala heleen tirada xisbiga UCID wuxuu helay 19,129 cod xisbiga kulmiya wuxuu helay 37,336 cod ayuu helay xisbiga wadani waxa uu helay 33,793 cod ayuu helay waxaan idin yeedhin doonaa dhammaan sida ay u kala heleen kuraasta saddexda xisbi qaran ee gobolka Awdal mid walba inta uu helay xubnaha kuraasta ku fadhiisan doona hadii la yiraahdo xisbiga UCID waxa uu helay 3 kursi buu helay saddexda kursi ee uu helay waxa ku guuleystay Ali Xaamud Jibriil Faarax number 2 numberka labaad Jimcaale Axmed Cilmi Yunis numberka saddexaad waxa ku guuleystay Nuur Cismaan Guuleed Warsame saddexda xisbo kursi ee xisbiga UCID saddexda ayaa ku guuleystay diilaada xisbiga kulmiye waxa ku guuleystay 5 xubnood ayaa ku guuleystay kuraastoodii waxa kamid ah Abubakar Saciid Cali Gaboobe Ali Xuseen Nuur Beegsi ka saddexaad waa Bashiir Xuseen Xirsi Bulaale ninka afraad waxa weey Fuaad Axmed Deeriye Faarax numberka shanaadna waxa galay Maxamed Xuseen Maydhane xisbiga wadani waxa uu ku guuleystay isaguna 5 kursi ayuu ku guuleystay oo ah kuraasta gobolka Awdal waxa kamid ugu horeeya Axmed Yaasiin Maxamed Xasan numberka labaad waxa galay Cabdiqani Maxamed Aadan Cali numberka saddexaad waxa galay xisbiga wadani Cabdikariim Aadan Cumar numberka afraad Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac numberka shanaadna waxa galay Mukhtaar Xasan Maydhane kuraasta sida loo kala guuleystay waxa lagu guuleystay 12 kursi labada kursi ee kale waxa lagu helay waa fractionka waxa ku helay ama jajabka waxa ku helay oo ku soo galay xisbiga UCID oo uu ugu horeeyo Nuur Cismaan Guuleed Warsame waxa ku soo galay fractionkii ku soo galay ninka la yiraahdo Mukhtaar Xasan Maydhane ka labaad kursiga labaad ee fractionka ayuu ku soo galay wabillahi tawfiiq Abshakuur Maxamed Ali 5TV Borama